Waxaa jiray wiil yar oo lagu magacaabi jiray Axmed. Axmed wuxuu ku noolaa tuulo yar oo sabool ah, aabbihiina wuu geeriyooday isaga oo yar. Hooyadii ayaa si dhib badan u korisay, mar walbana waxay ku odhan jirtay, waxbarashadu waa iftiin, jaahilnimaduna waa mugdi. Laakiin Axmed saaxiibo xun ayuu raacay. Wuxuu ka tegay iskuulkii wuxuuna bilaabay inuu ku faano waddo wareeg iyo ciyaar. Hooyadii mar kasta way waanin jirtay, balse ma dhegaysan jirin. Maalin maalmaha ka mid ah hooyadii aad bay u xanuunsatay. Waxay u dirtay Axmed inuu dawo ka soo iibiyo magaalada. Dhakhtarku warqad ayuu ku qoray magaca dawada iyo sida loo siinayo. Axmed ma akhrin karin waayo waxbarasho ma lahayn. Ceeb darteed cidna ma uusan weydiin. Wuxuu soo qaaday dawo khaldan. Habeenkaas hooyadii xaaladdeedu way ka sii dartay. Intii ay neefta la dhibtoonaysay ayay gacanta Axmed qabatay oo tiri, wiilkaygiiyow, jaahilnimadu qofka keliya ma disho, dadka uu jecel yahay ayay sidoo kale dishaa. Daqiiqado yar kadib hooyadii way geeriyootay. Axmed habeenkaas bannaanka ayuu fadhiistay isagoo ooyaya. Warqaddii uu akhrin waayey ayuu gacanta ku hayay. Markaas ayuu fahmay in qalinka uu ka culus yahay 100 murugo. Sannado kadib Axmed wuxuu noqday nin dadka wax bara, carruurtana wuxuu mar kasta ku odhan jiray, ha quudsan waxbarashada. Maalin ayaad u baahan doontaan qof aad jeceshihiin darteed. Qisadu waxay ina baraysaa, jaahilnimadu waa dhaawac aan muuqan. Waxbarashadu waa badbaado. Waalidka oo la dhegaysto waa khayr.